السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا سلامة دمان تاgeerayaasha Alpha Media Group meel walba dunida ka joogtaan fadlan haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar like taabo siina share gareey si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya xogaha aan baahin barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo ku dhacday wiil Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Mareykanka fariintan ayuu ka soo qoray xabsiga dhexdiisa markii aan akhriyay fariintan ayaan waxaan jeclaystay inaan adinkana in la wadaago bal sida aad u ogaataan qisadiisa dhabta ah iyo wiilkan Soomaaliyeed waxyaabaha ku dhacay oo ah wax aad iyo aad u la yaab badan qof walba maqla ama akhriyana oo ka murugoon doono waxayna u dhacaysaa sida tan Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ahay wiil Soomaaliyeed kana soo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland gaar ahaan magaalada Boorama waxaan ku dhashay wadanka Imaaraadka Carabta anigoo wax yar jira ayaa aabahay naga tagay hooyaday ayaa isoo kurisay aniga iyo gabadha iga yar waxbarashadeedii waxaan ka bilaabay wadanka Imaaraadka Carabta markaan heerka jaamacadda gaadhay ayuu aabahay ila soo xiriiray ina ballan qaaday inuu garabkayga galayo igana caawinayo wax walba oo aan aabahay uga baahdo aniga iyo gabadhii ila dhalatay wuxuu noo kaxeeyay dalka Mareykanka wuxuu isagu muddo 20 sano ah ku noolay wadanka Mareykanka asagu wuxuu ka shaqeynayay ilaa iyo iminkana ka shaqeeya isla Mareykanka markaanu joognay muddo kooban oo aanu ka badnayn 2 sano ayuu haddana naga tagay aabbo asagoo dalka Mareykanka ku nool ayuu haddana naga xidhay meel walba oo aan kala xiriiri lahayn nasiib darro gabadhii iga yareed waxay qaadatay dhaqankii gaalada waxayna la yeelatay asxaab Amerikaan ah aniguna waxaan isku dayay inaan ku soo laabano wadanka Imaaraadka Carabta oo ay ku nooleed hooyadeen laakiin way iga diiday kadib sidaas bay ugu nooshahay New York hooyaday waan booqan jirnay booqashadii aan booqano midii ugu dambeysay waxaan booqanay 2008 waxayna noqotay tii isku kaanya dambeysay hal ficil oo aan maalin sameeyay anigoon ogeyn ayaa waxa ay noqotay rag cadaan ah oo aan jaar ahayn gobolka Minnesota muddo dhowr sano ah ayaa waxay soo xadeen kaar ah nooca bangiyada lacagta lagaga saarto ayay ii bedeleen kaar aan anigu lahay kadib kaarkaygii ayay qaateen anigoon hoosba u eegin kaarka aan rabo inaan lacagta la iiga saaro ayay markiiba la igu yiri kaarkaani waa la soo xaday adigaana soo xaday kadib waaba la i xidhay cid xagga familiga ka socoto oo ay garab istaagtay maxkamadda markii la isoo taagay ma jirto aabahay waan u sheegay waxa jira laakiin nasiib darro adiga halkaas isdhigay buu igu yiri maalintii la xidhay oo ay ka soo wareegtay 9 sano ilaa maanta waxaan ku jiraa jeel madow ah taasi waxa iiga sii daran bil ka hor ayaa la ii soo sheegay inay hooyaday geeriyootay ma qabo rajo aan kaga bixi doono xabsiga mana qabo rajo aan ahayn tan aan Ilaahay ka qabo malihi cid caawisa oo aan Ilaahay ka ahayn malihi aabba i garab istaaga manalihi hooyo maanta ii nool oo aan is oran karo gacan bay ku siin kartaa gabadha kaliya ayaa ila dhalatay taasina waxay raacday gaalada Ilaahay soo hadeeyo cid kale malahan aabahay wuxuu haystaa lacagta ugu badan ee ay haystaan dadka Soomaalida ee ku nool America dawladda ayuu u shaqeeyaa wuxuu la socdaa oo saaxiib la yahay dumar cadaan ah walaalayaal haddaad rajo ka qabto oo aad maalin ku haminayso inaad darajo ka gaadho noloshaada anigu maanta rajadeyda ugu weyn waxa weeyaan inuu Ilaahay iga saaro jeelka oo uu ii soo celiyo xorriyadii aan ku noolay 9 sano ka hor walaalkayga aqoonta leh ee maanta ku haminaya inuu madaxweyne noqdo ama wasiir noqdo anigu maanta kaliya rajadeyda ugu weyn waxa tahay talow maalin xorriyadaadii ma lagu soo celin doonaa walaalkayga muslimka ah waxa kaliya ee aad igu caawin karto maanta waa duco aad igu soo kaalmayso walaalayaal ii soo duceeyo inuu Ilaahay gaalada gacantooda iga soo furo walaalo haddii aad leedahay damiir damqanaya iigu naxariiso islaamnimo Soomaalinimo walaaltinimo walaalo Ilaahay dartii si niyad ah sujuuda iigu soo duceeyo gacan iga awood badan baan gacanta ugu jiraa ii soo duceeyo Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ii aqbalo ducada qof walba oo ii soo duceeyo warqadan faafiya si ay ducadeyda u noqoto mid jamac sidoo kale waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu rajo walba oo wanaagsan u rumeeyo qof walba
oo nolosha rajo wanaagsan ka leh. Walaal, waxaan kaa codsanayaa inaad warqadan u dirto asxaabtaada si ay iigu soo duceeyaan. Ilaahay dembigiina ha dhaafo. Qof kasta oo ii soo duceeya, Ilaahay ha kuu rumeeyo rajadaada iyo hamigaaga nololeed. Intaas ayay ku ekeed fariintii uu xabsiga dhexdiisa ka soo diray wiilkii Soomaaliyeed ee walaalkeen ahay. Maxaan ka baran karnaa qisooyinka noocaana? Waa ay badan yihiin dad badan ee muslimiina ee xabsiyada ku dhibtoon, dad badan ee muslimiina ee xabsiyada ugu xiran si bilaa dembi oo iyagoon waxba dembiya geysan xabsiyada ku xiran, dad badan oo muslimiina ee waxyaabo yar xabsiyada ugu xiran. walaalkayga muslimka ah dadka muslimiinta ah waa dad isjecel, waa dad walaala, waa dad isku duceeye. walaalka haddaad u duceyso biri ajiraad ka helaysaa, adigana biri markaad xanuunsato waa lagu soo duceynaa. qofku wuxuu garab u baahan yahay maalintii uu dhibtoon yahay. maanta waa uu dhiban yahay walaalkeen, aniga waxba aqoon uma lihi, laakiin markii aan akhriyay fariintiisa ayaan aad iyo aad u damqaday, wayna isoo jiidatay. waxaana jeclaystay inaan adinka inii soo gudbiyo si aad adinkuna ugu soo duceysaan, waayo ducadu wax sahlan ma ahan. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ka sareeya gaalada oo asagu xabsiga ugu jiro gacantana hadda ku haysa. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa quluubta bini'aadanka gadgadiya, soo doonana u gadiya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa quluubtooda gadi kara, fahansiina kara inuu ninka wiilkan Soomaaliyeed qalad ku xiran yahay, dembina ay ka galeen, iskana fasaxaan. wuxuu fahansii karaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ciqaabta ay marsiinayaan wiilkaani aysan ahayn mid uu mudan yahay, iskana cafiyaan ay xabsiga ka fasaxaan. kaligiis ma ahan, dad badan ee Soomaaliyeed iyo dad badan oo muslimiin ah oo intuba sidoo kale xaqdarro ugu xiran xabsiyada caalamka ayaa jirta. walaal, qof muslim ayaa tahay, damiir damqada ayaad leedahay, biri waad xanuunsan, biri sidoo dhibaata kula kulme adiga iyo qof familiga. tusaale ahaan, biri markaad xanuunsato ama familigaaga qof kamid ah oo dhibaato la kulmo, sida ummadda muslimiinta kula damqato kuuguna soo duceeyaan, waa inaad u duceysaa qofka maanta familigaaga ka tirsan ee muslimka, waayo muslimiintu waa hal family. muslimiintu waa dadka isugu jecel, isugu naxariista, isku kaalmaysta. nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiisku leeyahay, qofkiin ima uusan rumayn ilaa waxa uu naftiisa la jecel yahay oo la jeclaado qofka walaalkiisa. maanta caafimaad inaan helno, mustaqbal wanaagsan inaan helno, wax walba wanaagsan inaan helno ayaan nafaheena la jecelnahay. waa inaan nafaha dadka kalena la jeclaanaa, walaalaheena wax wanaagsan sida ay ayaguba wanaagga noola jecel yihiin, waa inaan wanaagga u jeclaanaa. salaad walba dhexdeeda xilliyada sujuudda u duceeya dadka muslimiinta ah ee xanuunsan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caafiyo. inta xabsiyada ku jirta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xabsiga ka saaro. markii kale oo waqti heshaan oo adinku aad duceysanaysaan, ducadii aad duceysanaysaan markaad dhamaysato waalidka ay u duceyso, waxaad u duceysaa dadka muslimiinta ah. amuuraha dadka muslimiinta ah waa inaad ka fikirtaa, waayo dadka muslimiinta waa kal jasadil waaxid, hal jasad waay. walaalkeen Ilaahay waxaan uga baryaynaa si niyad qaalisa, Ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga awooda inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala xabsiga ka soo saaro. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nolol mid ugu raaxada badan uguna wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu nooleeyo. walaasha aad gaalada ka raacday ee aad adigu xoogay aad ka damqatay ee kula xumaatay qaabka ay ku socoto, Ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa wax xanuuniye. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kuu soo hanuuniyo dariiqa saxdaana, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku toosiyo. aabbahana si walba u xumaado waa uun aabe, waa uun aabe. si walba u xumaado maalin inuu kuu soo noqon doono ayaan rajaynayaa. asagana waxaan hadduuna dhageysan doono ka codsanayna inuu wiilkiisa u noqdo garabna siiyo, waayo hooyadiis waa dhimatay, hooyo Allah u naxariisto. aabe adiga ayuu garabkaaga baahan yahay wiilkaagu. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu aabe laftirkiisa qulubtiisa soo weeciyo oo tuso xanuunka iyo dhibaatada uu dareemayo wiilkiisa oona la garab galo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay qof kale muslim oo dhibtoon dhibka uga gargaara.
aabbo wiilkaaga haddaad dhibka u gargaari karto waa wiilkaagii, waa qof muslim garab ayuu kaaga baahan yahay, garabkiisa tag. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala inta muslimiina xanuunsan ha caafi, inta cabsida ku jirta ilaahay subxaanahu watacaala xabsi ha kasoo fakay. wabillahi tawfiiq.